salaad roobdoon ah ayaa laga tukaday magaalo ganacsiyeedda Togo Jaale taasi oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Togo Jaale iyagoo oo sheegay in ay abaar baan ka jirto gobolada bariga Soomaaliland isla markaana ay u baahan yihiin in loo gurmado. Allahu akbar ilaahay baa mahadle maanta waxaynu halkan u fadhinaa roobdoon aynu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku baryayno inuu raxmaadkiisa noo shubo gacmaha eebe ayuunbaa lagu dhargaa gacmaha bini'aadanka laguma dhargo ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu inoo soo gacmihiisa inoo soo fidiyo insha allah bidnillaahi kariim sidaad ogtihiin baa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ahna mudane Axmed Maxamed Axmed Siiraayo ayaa wuxuu ilaamiyay in dhammaan jamhuuriyadda Somaliland min cirif ilaa ka cirif salaad roobdoon la tukado maanta waynu wada ognahay goboladeenii barigu in ay ka jirto abaar aad u baan walaalayaal waxay isweydiisaan abaarta ka jirta barigu waa abaartii inagana ina saameysay barigii Daweytoole gurmada ayaa laynoo soo fidiyay walaaladeen wayna soo caawiyeen waa ogeydeen inagana waxa laynooga baahan yahay gurmadkiisii in aynu gurmano ayaa laynooga baahan yahay waxaynu ilaahay ka baryeynaa inuu ilaahay roobna siiyo inuu ilaahay raxmadina siiyo waxa dhacday marka sidan oo kale ay abaaruhu dhacaan waxa weeye waa marka laga tago sakada ee la istulmiyo ee dhibaatadu dhacdo markaas ay abaarahaas oo kale ilaahay dadka ku sababa ilaahay waxaynu ka alla baryeynaa in ilaahay raxmadina siiyo dhammaan la iswada saamaxo sidii sheekh Yuusuf sheegay dadka walaalaheena ee dhibtu haysato ee abaartu ku dhacday inaynu u gurmanaa loo baahan oo aynu ka wada qayb qaadano waayo shalay toole inaga abaar baan haysatay waynu soo gurmadeen barasaabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi waxa kamid ahaa oo keenay barigay abaarta ugu xumi ay taagneed 100 gaari oo cawsa maantana inagana waxay loo baahan yahay inaynu gurmadkii iyagu ay inoo soo sameeyeen walaalaheen inaynu inaguna ka qayb qaadana loo baahan yahay salaada aynu tukanna waa salaatul istisqaa ilaahay waxaynu ka baryeynaa inuu ilaahay magaranaysaa inuu soo asturo aan iska ururino aan dib ugu celino xaqna inagu leeyahay shalay baa casbayno keenay abaalka inaan celino waa inagu leeyahay waxa weeyaan maantana dadkaasi ma qaadi karayno ilaahay waxaan baryeynaa inuu dadka halkooda ku siiyo roobka inuu ilaahay halkooda ku siiyo roobka waa Cabdirashiid Salmaan Muuse Somali Cable TV magaalada Wajir.